qoysas danyar ah iyo barakacyaal isugu jira oo ku dhaqan magaalada Laascaanood oo gaadhaya ilaa 560 qoys ayaa loo qaybiyay alaabooyin kala duwan oo ah kuwa guryaha. qaybinta alaabtan ayaa dadka barakacayaasha iyo dadka danyarta ay ka faa'iideystay ay aad u soo dhaweeyeen, iyagoo ka codsaday hay'aduhu inay markasta ay la soo gaaraan dadka danyarta iyo barakacayaasha adeeqa la mid ah kuwan oo kale. waxaana saaka lagu arkayay goobta lagu qaybinayay alaabtan noocyada kala duwan ah dad gaaraya 100 qof oo markaasi safaf ugu jira siday u heli lahaayeen deeqdan alaabta ah. waxaana halkaasi ka warbixiyay sida loo soo gaarsiiyay qalabkan dadka barakacayaasha iyo dadka danyarta ah howlwadeen ka mid ah ururka Hanaqaad oo inta badan qayb weyn ka qaata waxbarashada gabdhaha. maanta qaybtan la qaybinayaa dadku waxay tiradoodu tahay 560 qoys oo ah dhammaan dadkii soo barakacayaasha ah iyadoo aan ku soo xulay oo aragtaan aanay badna ka gaarin. sidoo kalena madaxa hay'adda MBA xafiiska Laascaanood Shukri Xasan ayaa iyaduna ku dheeraatay inay markasta ay wanaagsan tahay in wax loo qabto dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Laascaanood. non-food items distribution Laascaanood IDPS marka waxa weeyaan ma amadka koowaad mashruuca hay'adda MBA Foundation waa markii labaad mashruuca noocaas MBA ay fundraisay. ugu dambeyntiina qaar ka mid ah dadweynihii deeqdan ka faa'iideystay ayaa uga mahad celiyay Hanaqaad iyo MBA kaalinta wanaagsan ee ay kaga jiraan deegaanka. man ka saaradaani roobka wayna sii intiin shantaan oo dadku qofka Hanaqaad Allah darajeeyo naarweynta mahad weyn baan u celinay intiin shantaan oo dadku qofka Ismaan Raxiim anigoo ah gudoomiyaha barakacayaasha gobolka Sool ninka wax u soo wado يوكم مرسيون قبل كواي من درب عبد الرحمن علي دعالي هون كيبل TV Laascaanood.